يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha lixaad 2020 kuna beegan 22 bisha Shawaal 1441, waxaan soo gaarnay qaybtii shanaad ee riyooyinka. waxaan ku bilaabaynaa riyadan. sa'ilkan wuxuu leeyahay: waan idin salaamay Sheekh Xasan Ibraahim Ciisa iyo dhammaan akhyaarta la shaqaysa oo ay khayrka isla wadaan. Allah ha idin xifdiyo, ilaahay ha idin ilaaliyo, umuurihiina ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sahlo. sheekhow, anigoo jiifa ayaan waxaan ku riyooday anigoo islaan ifiijinayso, bimacnaa iracdaynayso, ay rabto in ay isoo qabato, anigana aan ka ordaayo. meel cariish ah ayaan ka galay, waana ku wareejiyey. waxay rabtaa in ay isoo qabato, wayna isoo qaban la'dahay. aniga oo ka ordayo, markii ay daashay ayay la soo baxday midi ay hoos ku wadatay, way igu soo tuurtay, meel cidlo ah ayayna ku dhacday. saas ayay ahayd. sheekhow, way daashay, waxay gudaha u gashay in ay isoo fiiriso, ayadoo neef tuurayso. anigana waan isaga soo tagay anigoo weli si xasilooni ah isaga socdo, ayuu leeyahay. bismillahi raxmaani raxiim. dumarka markaad ku riyooto, markay ziino leedahay iyo markay raf tahayna waa la kala qaadaayo. waxaa la yidhahdaa qof islaan ah oo duq ah oo raf ah haddaad ku riyooto waa cudur. haddiise qof dumar ah oo caadi aad ku riyooto waa adduun. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaa badbaadiya adduunkii fidnadiisa. waa adduunku soo doonanaya, fidno iyo dhibaato raba inuu ku gaarsiiyo, adigana aad kasii cararayso, aad diidan tahay. islaantan kaasoo daba ordaysa waa adduunkii, adigii waad ka cararaysaa, waad daalisay, si ay ku yeeshay weysay. adduunkii fidnadiisa ilaahay kaa badbaadinaya, ilaahay idinkii waxay guda gashay inay ku dhibaatayso. adduunku ugu fasahaysa waa mididii, way kugu soo tuurtay, way kusoo gaari weysay. fitanteeda wali ilaahay kaa qabtay subxaana wa tacaala. si xasilooni ah oo sakiinaad u socotay, waa badbaad aad ka badbaaday fidnada adduunka insha allahu tacaala. nacam. sa'ilkan kale wuxuu leeyahay: waxaan ku riyooday nin gaaban oo qolka iigu soo galay. waxaan ku idhi, waryaa qolka ka bax. midi buu ila soo baxay, galka ayuu ka saaray, kama baqin, oo waxaan ku celceliyey laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. wuu xirxirmay asagoo xirxiran ayaan hurdadii ka kacay. maxay noqon kartaa? bismillahi raxmaani raxiim. dad dagaalsanaa ama qaraabo kala go-naa oo col iyo waxyaabo jiray oo markaa isku imaanaya insha allahu tacaala. xirxiritaanka aada sheegayso ama uu sheegayo la xirxiray waa dad kala maqnaa, traabid isku yimid. marka waa riyo fiican qaybta dambe insha allahu tacaala. dad kala fogaa oo heshiin doona iyo noqon doonta haddii rabbi idmo. nacam. sa'ilkan wuxuu leeyahay: sheekhow, wiil aan sheekaysano, waa gabar, wiil aan sheekaysano ayaan ku riyooday anigoo quraac u samaynayo, asagana uu qubaysanayo. sheekhow, ii sheeg biliis, waan ku baryaa. bismillahi raxmaan raxiim. khayr allah uga dhigo. wiilkii iyo gabadha markay sheekaysanayaan laba siba way noqotaa.
mar waxay noqotay xadiithu nafsi ilan maantao dhan waa la sheekaysanayaa, beri waa la hadlayaa, guur baa laga hadlayaa, wixii baa laga yaaba inay maskaxda soo celiso see quraac ugu kari lahayd, beerka si ugu kari lahayd oo kale inay markaa ku fakeraysayo xaaladda ay ku riyootay. in arrintaa ay dhacday ay dhacayso insha allah ilaah u fududaynayana ayadana waa suuragal insha allahu tacaala. marka labada siba way noqotaa. marna waa xadiithu nafsi oo maskaxdii baa soo celisay wixii lagu sheekaysanayay maantao dhan, marna inay isu imaan doonaan ilaahay idinkii. marka labadaba tii khayr ku jira yaan ilaahay uga baryanaa gabadha insha allah. nacam. saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh ilaahay ha ku barakeeyo, barnaamijkan riyada aad baan usoo dhawaynayaa waana idinkaga mahad celinayaa. sheekhow waxaan ku riyooday anigoo meel bannaan ah taagan baan agtayda ku wuxuu leeyahay anigoo meel bannaan ah taagan nin baa agtayda kuwayso qaadanayay. cirka ayaa waxaa soo maray wax dheer oo sida xarig oo kale ah oo cad. dadkii baa isku dayay inay soo qabtaan wayna kari waayeen. aniga ayaa booday waana soo qabtay. nin aad u xoog badan buu ahaa. kor buu ila aaday. markii aan dhulka ula soo degay ayay dadkii igu yiraahdeen see u soo qabatay oo u celinaysaa xarigan xoogga badan. gabar baa timid waa taabatay xarigii kadib aad ayuu u dabcay. way carartay anigana waan ka daba cararay. god ayay ku dhacday anigana waan kula dhacay waana ka soo baxay. waxaan imid meel gaari jooga. furana waa laysiiyey. waxaa laygu yidhi kan ma ahan gaarigii aad raaci lahayd laakiin wuu imaanayaa. bismi illaahi raxmaani raxiim. gabadha meel cidlaha taagan waa qof buuq la-aan nool, noloshiisuna ay hagaagsan tahay, wax dhib ah ee shaqaaqana uusan ku jirin. waa kow. xariggaa cirka maraya waa darajo sare. dadkii waxay isku dayeen inay gaaraan laakiin way gaari waayeen. inantani nolosha ay ku nooshahay ama wiilka hadduu yahay ama gabar baan filayaaye inay kor aadi doonto nolosheeda, laakiin waxaa imaanaya waxyaabo dabcinaya hoosna usoo dhigaya nolosheeda. waa gabadhii xarigga taabatay. waxaan aad u filayaan u malaynayaa gabadhan in gabar lala qabo oo xaas kale inay jirto. taasna waa suuragalo way keenaysaa. waayo cararkii ay carartay iyo xariggii ay ka taabatoo dabcay. ilan xaasasku marka ay badan yihiin mid kasta wixii ay heli lahayd waa lala qaybsanayaa. wixii xooga badnaa ducfi baa ku dhacay, hoos buu u yaraaday. way baxdo god bay ku dhacday. waa nolol waxoogaa dhib badan oo la geli doono. ayaduna way ka daba gashay, way ka baxday. waa marxaladooyin adiga. gaari furihiisaa la siiyey, ka meesha yaala kaaga ma ahan baa la yiri, ku kale ayaad raaci doontaa. mayna noo soo sheegin inay ka kala raacday iyo in kale, laakiin taa waxay noqonaysaa noloshii hoos u dhacday oo haddana mar labaad soo kobcismayso, korna usoo noqonaysa insha allahu tacaala. marka waa riyo wanaagsan oo farxad leh. nacam. saa'ilkan wuxuu leeyahay allah ha idin xifdiyo bahda youtube-ka sheekh xasan ibraahim ciise, khaas ahaan sheekh xasan ibraahim ciise oo aan ilaahay dartii u jeclahay. waxaan riyo ku arkay gabar dumaashi ii ahayd oo horay u dhimatay, khayrna aan ku tuhmaayo, iyadoo guri weyn oo aad u camiran ku jirta. anna aan la joogo iyo ehelka qaarkood. waxaan ku idhi gurigii hore kan ayaa ka fiican. iyaduna waxay igu tiri kan iyo kii hore wax saas ah isma dhaamaan xagga kirada. bismi illaahi raxmaani raxiim. gabadhaas aad kheyrka ugu rajaysayba waxay noqon kartaa riyada inay kheyr ilaahay la kulmiyo. ilaahay idinkii waana u rajaynaynaa. guryaha waaweynka iyo dooga iyo waxyaaba marka lagu riyoodo waa bishaarooyin. weliba dad dhinta marka loogu sii riyoodo way kasii fiican tahay insha allah. allah u dhabeeyo. teeda kale adiga waxaa lagu tusayaa camal wanaagsan inaad ku dadaasho.
macnaha fartaa lagugu fiiqayaa waayo waxaa tiri gurigan waa guri fiican oo kii hore ka wanaagsan ka hore ka adduunka aanu ku fasirno kan baa ka fiican waxaa lagu tilmaamay labadoodu inaysan waxba isdhaamin xagga kirada taasaa fasirkeedu wuxuu noqon karaa haddaad soo shaqaysato ood camal fiican soo qabato taa laftigiisa wax ma dhaamo daarta adduunka laftigeeda camal fiican waad ku qaban kartaa marka waxaa lagu leeyahay dadaal adigana cibaadadana laba jibaar insha allah nacam saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan ku riyooday anigoo masjid dhex jooga oo qur'aan akhrisanayo waxaa laygu yidhi bannaanka ayaa lagu joogaa markaan soo baxayna waxaa gacanta i qabtay islaan bannaanka taagnayd oo aan garanaynin waxay i geysay guri qasri aad u weyn waxay fadhiisatay qol ka mid ah qolalka anigana horteeda ayaan fadhiistay maxaad iga rabtaa ayaan ku idhi waxay igu tidhi waxaan rabaa in aan wiilkayga kugu darsado oo aad ii fiicnaato gabdhaha kale oo ay wiilashayda qabaan aad iiga fiicnaato waxaan ku idhi aniga ardayad baan ahay imtixaan ayaana galayaa waxay igu tidhi meeqaad ku maqnaanaysaa imtixaanka waxaan ku idhi 2 bilood waxay igu tidhi 2 bilood kadib iisoo laabo qofkaan raadinayay baad tahaye waxaan ku idhi yaa i kaa baray waxay igu tidhi waxaan kugu arkay albaabka masaajidka adigoo dadka waxa dhibaya ka qaadaya bismillahi raxmaani raxiim waa adduun ayadana qof inta masaajid ku jira qur-aan iyo diin akhrisanaya laga soo bixiyey khasri la geeyey horena waan u tilmaamnay dumarka sidoodaba waa adduun baa lagu fasiraa sideeda adigana fitnada adduunka ilaahay ha kaa badbaadiyay intii muslim ah ilaahayna waa kaa najeeyey riyada sida mataqaanaa ka muuqata islaantan way ku waday qasri bay ku geysay adduun bay ku dhex dhigtay haddana waxay rabtaa inay kugu sii dabarto ay kugu fidnayso markay leedahay wiilkaygan kugu darsanaya waa taraabid waa meel aad ku xirnaanayso adiga salaaka ilaahay wuu kaa badbaadiyey sacaadada aad u badso dikriga ilaahay aad u badso insha allahu tacaala hadalkii aad tiri ay ku tiri waxaan ku arkay adoo masaajidka khayrka ka aroorinaya maxay rabtaa marka waa adduunkiiyo in khayrkii iyo diintii intaad ka fogaato adduun iyo khasri marka lagu dhexgeliyo marka insha allahu tacaala adduun fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasana taasaa ilaahay laga baryaa insha allah nacam sailkan wuxuu leeyahay sheekh aad baan kuu jeclahay ilaahay dartii firdowsa dadka la dhaxal siiyo ilaahay ha kugu daro sheekh waxaan ku riyooday wiil aan dhalay oo dhowaan guursaday ayaa wiil walaalkiis ah oo ka weyn ayaan intaan midi u dhiibay ayaan ku leeyahay ka goy faraha gacanta maxay noqon kartaa sheekh ilaahay ha ku xifdiye bismillahi raxmaan faraha oo la gooyo waciyaadu billaah waa dhibaato horta waxyaabaha lagu fasiro wixii dhib iyo waxyaabahana allah ka haayo marka gobol ka mid a dadka riyada fasir waxay ku fasiraan faqdaan alawlaad ilma la-aan ilaahay laakiin wixii dhib ah oo mashaakil ah oo nusqaan ah ilaahay ha naga badbaadiye asaga iyo dhammaanteenba waxaa kaloo la yidhahdaa faraha goyntooda waxaa lagu fasiraa asdiqaa iyo saaxiibo xunxun ahna waa la yidhaahdaa marka labada xaalba ma wanaagsana riyada noocaas oo kale ah wixii dhibna allah naga haayo insha allah nacam sheekh waxaan ku riyooday wiil aan dhalay oo xanuunsan oo xirxiran agtiisana ay masas iyo abeesooyin ay joogaan taasina maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa xirnaantaas aan soo tilmaanay dad kala gogo'sanaa col ahaa oo isku imaanaya insha allahu tacaala masaskii abeesooyinka waa cadow dad cadow ku dhex jira oo la kala geegeynayo oo dad isku diraya
oo haddana mar labaad noloshooda fiicnaan doonto xarigaa sababtiisa. marka taa way noqon kartaa insha allahu tacaala. nacam sheekhow ilaahay ha ku barakeeyo, raalingelinta allana ilaahay ha ku siiyo, raallina iga ahaw. riyada igu walwalka badan waxay tahay waxaan ku riyooday aabbahay oo dhintay oo jirkiisa googoynaya, markaasna oo uu xubin u goynayo, xubin walba uu gooyana uu cabaadayo. bismillahi raxmaan raxiim. xaaladda markay saa noqoto waxaa dhici karta dayn inay jirto qofka markaa lagu lahaa aanana markaa laga gudin. taa waa la yidhaahdaa oo waa lagu fasiraa. waxaa kaloo jirarka goyskiisa lagu fasiraa qof xanuunsan oo caafimaadaya ilaahay idinkii, inuu jiro familka qof xanuunsan oo ilaahay caafimaad siin doona ilaahay idinkii subxaana wa tacaala. waayo jirka qofku markuu xanuunayo ama la gooyo xanuunka uu dareemayo kadibna uu aamusayo waa caafimaadkii oo markaa imaanaya insha allah. aadina waa kariyo wanaagsan bay noqonaysaa ilaahay idinkii. nacam saa'ilkan wuxuu leeyahay, sheekh waxaan ku riyooday guri aad u qurux badan oo maasha allah ah. waxaa laygu leeyahay guriga hebel baa leh, gurigaana hebel ayaa leh. waa dad aan garanayo, maxay noqon kartaa taasina? tusaale lagu siinayo noqon kartaa. dadkaas in loo niyeysa dad wanaagsan inay ahaayeen, adigana gurigii lagu tuso aan lagu dhihin gurigaagii waaye, laakiin lagu yidhi hebel baa iska leh, kana hebel baa iska leh. si aad adigana heer horumar adduuni mid aakhir aad u gaarto, qasrigan oo kale ama gurigan oo kale lagu dhaho adigaa iska leh, in adigana aad dadaasho adduun iyo aakhir labadaba aad ku dadaasho camaladooda si aad u hesho adduun wanaagsan iyo aakhir markaa wanaagsan insha allah. nacam saa'ilkan wuxuu leeyahay, sheekhow waxaan ku riyooday anigoo isku kaadinaya oo sariirta dusheeda ku kaadinaya, waana dhowr jeer. ii fasir walwalkeeda ayaa ihaayee, muraadkaaga ilaahay ha kuu sahlo. sheekh xasan, taageerayaashaada ayaan ka mid ahay weyled. maasha allah, aamiin. qofka isku kaadinaya hadduu ku riyoodo asoo najaasadii ama waxyaabihii ay kasoo baxayso, inta badan waxay dhahaan dadka riyooyinka fasiraa qofkaas sir u qarsoonayd ayaa banaanka imaan doonta, way ka kashifmaysaa. hadda koraa su-aashaan qof i weydiiyey oo riyadan ah, waa muddaa kasoo wareegatay. wuxuu anoo isku kaadinaya ku riyooday, sir ku qarsoonid baa soo baxaysa ayaan ku iri. ilaahay baa xaqiiqda yaqaane. maalin dambe iga hor yimid, intuu iga qabtay waryaa u yiri shacasad islaam qudba siro ah oo ii qarsoonayd ayaa iga kashifantay banaanka iga soo baxday. marka almuhiim xaalku saas markaa noqonaya insha allahu tacaala. sir fiican allah kaaga dhigo. nacam saa'ilkan wuxuu leeyahay, sheekh waxaan ku riyooday anigoo saaran mooto ay 2 nin wadaan oo aan wejigooda u jeedin, oo aan aniguna qaylinayo, weliba labadayda gacmood ay katiinado ku xiran yihiin. waxay igu dhaheen cab coca-coladan. anigana waxaan ku idhi waan soomanahay. katiinadii ay igu xirayeen waxaan isaga furfuray salliga nebiga akhrintiisa. sheekh maxaa lagu fasiri karaa? khayr allah ku siiye. bismillahi raxmaan raxiim. riyo aada u fiican waay. imtixaan kugu soo socda, balse ilaahay kaa najiyin doona subxaana wa tacaala. waxaad uga fakanayso ilaahay kugu badbaadinayana uu yahay taqwada ilaahay, cibaadada iyo salliga nebiga sal alla alayhi wasalam. marka saddexdii hadda ama arrimihii aada sheegtay iyo katiinadii kugu xirneed oo salliga nebiga sababtiisa ay kaaga furantaad akhrisatay, intaa aad iyo aad ugu dadaal. cibaado fiican baad ku socotaa baa la tilmaamaya. 2 jibaar khayrkii wanaagana ku soco. kookadii lagu siin rabayna waxaad uga badbaaday inaad sooman tahay, waa cibaado. xarigiina waxaad isaga furtay waa salliga nebiga sal alla alayhi wasalam. salliga nebigana waa waxyaabaha qofka hamiga iyo murugta looga qaado iyo markaa ku jirtaa. marka saasay noqonaysaa insha allahu tacaala. cibaadadana badso. nacam
saa'ilkan wuxuu leeyahay hooyaday baa ku riyooday wayna xanuunsan tahay muddo badan. Waxaan dhahaa hooyo akhriso faataxada. waxay ku riyootay gurigeeda gadaashiisa oo yaalla koob dhoobo ah oo ay qaaday qof dumar ah. hooyadayna ay leedahay maxay u qaadaysay iyada? بسم الله الرحمن الرحيم. horta midna waa caafimaad insha allahu tacaala. faatixada akhrisa aad tiri ayaa waxay tilmaamaysaa shifaa. faatixada waxay ka mid tahay ama magacaalkeeda waxaa ka mid ah suuratu shifaa ama daawada suuradeedii. taasi waa mid. waxaan meesha laga qaaday gurigeeda gadaashiisana inuu yahay cudurkii oo ilaahay ka qaaday subxaanahu wa tacaala, caafimaad oo markaa loogu bedelay. inta dambe shaydaan baan u tiirinaynaa. sababtu waxay tahay marka qofku yidhahdo maxaad u qaaday adiga waa shalay, maxaa kuu geeyey, macnaha qof cudurkii asaga ku wareegay oo kale. laakiin qaybtaa dambe waan ka jaranaynaa insha allahu tacaala. marka waa riyo wanaagsan. nacam. saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh, waxaan rabaa in aad ii fasirtid riyadan. hooyaday ayaa igu dhahday nin wanaagsan oo reerka ah ayaan kula rabaa. intaan ka ogolaanin ayaan ka istiqaaraystay. kadib ayaan ku riyooday anigoo meel cidlo ah jooga. kadib cirka ayaan ku arkay maroodiyaal cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa ku ordaya, roobna la socdo. roobkaasna waxa uu ku eg yahay meesha ay ku ordayaan. wax yar kadib maroodiyaashii waxay isku bedeleen lo oo weyn oo xanaaqsan. kadib cabsi ayay igelisay. waan ka soo cararayaa. way isoo bursanayaan. markay isoo dhawaato hadalkaa igu dhagayo. kadib ayaan waxaan dhahayaa laa ilaaha ila allah inta waana ku celcelinayaa. markaas ayay baxaysaa. waana ka soo toosay. weli waa walwalsanahay. sheekh jawaab sii. بسم الله الرحمن الرحيم. wiilka aabba hooyo kuu doortay inuu wiil fiican yahay marka hore insha allahu tacaala. haddii aad guursatidna marka ugu horeysa nolosha aad gelaysaan inuu noqonayo nolol wanaagsan ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala. maxay tusinaysaa meesha cidlada ee banaanka ah gabdhaha ku riyooda ayagoo guurdoona ama la guursaday waa riyo wanaagsan. isku dir guri dumid wax dhan bay ka fog tahay meesha banaanka ah. kaaga sii dar cirkaad fiirisay, cirkii maroodiyaal baa ku socda, cirkii dhulka intuu dhaxaysa waa barwaaq aad iyo aad u weyn. roob baa la socda, way ka daran tahay. waxoogaa dhib baa imaanaya, isku dhac baa imaanaya, lo xanaaqsan yaa imaanaya. waa laisku xanaaqaya, waad cararaysaa, guriga hooyadaa baad ordaysaa. waxaad ku badbaadaysaa marka dambana kelimadii laa ilaaha ila allah ama laa ilaaha ilaa anta. marka guurkaasi haddii istiqaarada ay kuu dhammaato, riyadu waxaan nooga dhex cad inaysan wax dhibaato lahayn. guurka hooyo ay kuu keentay ninkaa inaad guursato insha allah. nacam. saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh, ilaahay ha ku barakeeyo adduun iyo aakhiraba. aad baan u jeclahay diinta in aan barto, waana dadaalaa. laakiin sidii iyo heerkii aan rabay weli kama gaarin. ii ducay in ilaahay igala mid dhigo culummada waaweyn ee soomaalida sida shiikhayna ilaahay hanoo xifdiye sheekh maxamed cabdi umal, sheekh shible, sheekh mustafe xaaji iyo weliba adiga sheekh xasan ah oo aan daaci noqdo. magacaygana waa cabdiraxmaan xaaji cabdi.
sheekh waxaan kuu riyooday ramadaankan dhexdiisa aniga oo cabaya koob caano ah waana dhameeyey kii labaad ayaa la ii keenay nus anigoo marinaya ayaan ka dhargay intii kalena waan hambeeyey maxay noqon kartaa sheekh xasan بسم الله الرحمن الرحيم الله كو جعل هذا مركه هوري إلهي سبحانه وتعالى خيرك وناقا الله كو وافجي وكو دعينينا إن إلهي علمك كو بره علماء الصوماليات إي واوين إي أتلمانتي شيخ أمل كميدي هينا إنو إلهي كالمت ديغو إلهي سبحانه وتعالى أنا خير فربضان كسيو داعينا عاد مركا نقطه intaasan ilaahay kaaga baryaa marka hore taxigtana caanaha qofka cabahaya mar allaala markuu qof ku riyoodo asagoo caana cabaya cumar bay ku dhacday baa la yiri cumar radiyallahu anhu ayaa wuxuu ku riyooday asagoo caana cabaya illa ay aan ka dhargay buu ama rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa ku riyooday asagoo caana cabaya illa aan ka dhargayoon arkay dharagtii oo cidiyaalkay ka soo daadanaysa wixii ka soo harina cumar baan siiyay buu yiri maxaad ku fasirtay baa li rasuulka ilaahayo qaal al-ilm markii khamiiskan wuxuu yiri ad-diin marka taa waxay tilmaamaysaa cilmiga caanaha laftigiisa oo waxa tamaninaysay oo cilmiga markaa ah waliba soon baad ku sii riyootay waxaan ku dardaarmayaa dadaal badan inaad la timaado culimada waxay ku gaareen waa dadaal buu ahaa mala yaani iyo sheekana waqtigoodu kuma dhamaanin qofku mar allaala markuu daaci noqdo u jeedo culimadii uu bani aadamkii bulshadii uu anfacayo uu ku dhex jiro su'aalaha diiniga iyo cilmiga laga qaadanayo waa dadaal dheeraad ah oo la muujiyay ilaahina uu ugu darsamay adigana sidaas samee insha Allah ta'ala caana aad ku riyootaaba cilmi ah wabillahi tawfiiq sheekhana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku xifdiyo sidii aad nooga jaahil bixisay riyooyinkii aan ku weydiinay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaga abaalmariyo miisaankaaga xasanaadkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kugu daro dadka ilaahay uu doortay uu jeclaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaa mid dhigo qaybtii shanaad ee riyooyinkana meeshaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah intaan kaga kulmi doono qaybta lixaad waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh